kulan wacan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawad doontaana waxaa kamid saddex dowlad goboleed oo shir xasaasi ah ku yeesheen magaalada Muqdisho iyo faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya ujeedka kulankaasi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo ka haray tartanka doorashada madaxweynaha Soomaaliya beesha caalamka oo taageertay go'aanka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawad doontaan maxay tahay sababta amniga doorashada loogu wareejiyay ciidamada ADMIS qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawada hadana ku cusubtaan nagu soo biir oo kamid noqo saaxiibada sida joogtada oo helo wararkii warbixinada 24 saac aan u baahino aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya laagtiinana waa inoo muhiim daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa shir u dhaxeeyay maamulada Hirshabelle, Galmudug iyo Jubbaland kaas oo ka dhacay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya isla markaasna looga hadlay xaaladda Soomaaliya. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa uu u dhaxeeyay gudoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada Hirshabelle, Galmudug iyo Jubbaland kuwaas oo ka arinsanaya xaaladda taagan gaar ahaan dhamaystirka arrimaha doorashooyinka dalka. sida uu ogaaday dalka TV Media waxaa qabanqaabada shirkan lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Luqmaan Xaaji Maxamed oo kulankan ku casuumay dhigiisa maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo iyaguna ku sugan gudaha magaalada Muqdisho. Saddexda gudoomiyaha ayaana sidoo kale ka wada hadleen iskaashiga golayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta dhexdooda. Gudoomiyaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada Hirshabelle, Galmudug iyo Jubbaland ayaana kulan ku yeeshay caasimada dalka ee Muqdisho. Kulankan oo soo qaban qaabiyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdulxakiim Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa looga hadlay iskaashiga golayaasha baarlamaanada dowlad goboleedyada arrimaha doorashooyinka dalka iyo wada shaqeynta golayaasha baarlamaanka dowlad goboleedyada iyo golayaasha sharci dejinta qaranka ee golaha aqalka sare iyo golayaasha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay saddexda dowlad goboleed. Shirkan ayaana qayb ka noqonaya kulamada siyaasadeed ee haatan ka socda magaalada Muqdisho walow ay ka maqnaayeen labada maamul goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Puntland. Si kastaba magaalada ayaa waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada madaxweynaha taas oo la qaban doono 15 bishan May ee sanadkan 2022. dhanka kalena wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waxa uu ka haray tartanka doorashada madaxweynaha. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo soo saaray qoraal kooban ayaa shaaca ka qaaday inuu ka tanaasulay tartanka doorashada madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maxamed ayaa qoraalkan uu soo dhigay bartiisa ku sheegay inuu go'aansaday inuu iskaga haro doorashada isagoona tilmaamay inuusan haysan wixii u suurtagelin lahaa inuu guuleysto. sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in ololihiisa uu la xiriiray inuu toos ula hadlo shacabka balse wuxuu hoosta ka xariiqay in qaabka dadban ay lidi ku tahay hamigiisa siyaasadeed. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in lacagaha faraha badan ee ku xeeran doorashada ay ka hor imaanayaan danaha shacabka Soomaaliyeed. aqbalaada lacagaha ololaha ee ka hor imaanaya danta mustaqbalka fog ee shacabkeena Soomaaliyeed waxay qiyaamaysaa wax walba oo aan u balse waxaa kasii muhiimsan hooyooyinka aabbayaasha iyo dhalinyarada sida dhiiragelinta leh ee ugu garab istaagay ololihii aan ku jiray ayuu qoraalkiisa ku yiri Maxamed Cabdirasaaq. go-aanka wasiirka ayaana kusoo beegmayay iyadoo inta badan musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay isku diiwaangeliyeen xilkaasi. doorashada ayaana lagu wadaa inay dhacdo bilowga toddobaadka soo socda. geesta kalena beesha caalamku waxa ay taageertay go'aanka guddoonka baarlamaanka Soomaaliya. xilli si dardar lagu wado howsha doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaana dhanka kale waxaa soo baxaya dadka siyaabooyinka kala duwan arrinkan uga hadlaya. saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya ayaana soo dhaweeyeen ku dhawaaqista guddiga qabanqaabada baarlamaanka ee ah in doorashada madaxweynaha ay dhici doonto maalinta Axad ee 15 May. war ay si wadajir ah u soo saareen ayay ku yiraahdeen waxaan dhiirigelinaynaa horumarka wanaagsan ee laga gaaray diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo u diyaargarowga kale ee loogu jiro inaan laga dibdhicin waqtiga kama dambaysta ee doorashada. waa sida lagu yiri qoraalkan ee wadajirka u soo saareen wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya.
beesha ayaana waxa ay si toos ah u taageertay go-aanada madaxda baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya. ma jiro wax marmarsiya oo sabab u noqon kara dib u dhac kale oo dheeraad ah iyadoo labada aqal ee baarlamaankana la dhaariyay oo si buuxda u shaqeynayaan. arrin kasta oo doorasho oo taagan waa inay xaliyaan madaxda baarlamaanka ee sida saxda ah loo doortay ayaana lagu yiri warkan. sidoo kale waxa ay ku booriyeen madaxda Soomaalida inay si degdeg ah nabdoon oo xasilooni ku dheehan tahay ku soo gabagabeeyaan marxaladan kama dambaysta ah ee geedi socodka doorashada si loogu soo jeesto arrimaha dalka iyo dowlad dhiska ee mudnaanta leh. wahagaagi daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa maxay tahay sababta amniga doorashada loogu wareejiyay ciidamada ADMIS. dhowaan guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee qaabilsan qabashada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo saareen habraaca amniga doorashada oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho gaar ahaan teendhada Afasiyoone. doorashadan oo ku jadwalaysan 15 bishan May ayaa amniga guud ahaan doorashada waxa guddigu ay sheegeen in lagu wareejiyay ciidamada ADMIS oo ah kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika. arrintan ayaana ka dhigan in ilaa 3 albaab oo ah kuwa laga galo halka lagu qabanayo doorashada ay joogi doonaan ciidamada ADMIS kuwaas oo hubin doono xaaladda amni musharaxiinta martida iyo guud ahaanba dadka halka tagay. albaabka Madiina Gate oo la sheegay in dhammaan musharaxiintu ka galayaan teendhada Afasiyoone ayaa looga reebi doonaa ciidamada hubeysan oo ay wataan sida lagu sheegay qoraalkan ka soo baxay guddiga isku dhafka ah ee gacanta ku haya howsha doorashada. inkasta oo ciidamada ADMIS ilaaliyaan goobta doorashada iyo agagaarka haddana halkaa waxaa la geyn doonaa tiro kooban oo ka mid ah ciidamada Soomaalida. sidoo kale guddiga ayaa sheegeen in ciidamada Soomaalida ay sugi doonaan amniga wadooyinka magaalada Muqdisho. sababta aysan amniga gudaha u sugaynin ciidamada Soomaaliya ayaa lagu sheegay si aysan isku haleen u dhicin. mar wax laga weydiiyay Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka tirsan guddiga isku dhafka ah ee doorashada sababta aan gudaha loogu ogoleen ciidamada Soomaaliya wuxuu sheegay gudaha ciidamadu way joogaan ciidamo booliska ayaana ka shaqeynaya inkastoo ay tiradoodu kooban tahay. sababtuna waxa ay tahay waa anshaxa iyo borotokoolka ee ma ahan arrin kale. dadka qaar ayaana qabaan in amniga doorashada lagu wareejiyo ciidamada ADMIS ay muujin karto kalsooni daro laga qabo ciidamada Soomaaliya. hase yeeshee waxaa arrinkan meesha ka saaray Macalimo oo sheegay in sida aan loo qaadan karin maadaama ciidamada midowga Afrika ay ilaaliyaan inta badan xarumaha dowladda ee muhiimka ah. wuxuuna sheegay sidoo kale in musharaxiinta oo iskugu jira siyaasiyiin kala duwan loo doonayo in loo sinaado sidaasi daraadeedna ay noqotay ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika inay sugaan amniga guud ee xarunta. ujeedadu waxa weeye in guud ahaan musharaxiintu u sinaadaan goobta. qaar baa dowladda ka tirsan hadda, qaar baa kuwii hore ah, qaar baa weligooda madax noqon. marka waxaas oo dhan waxa ay tahay in musharaxiintu sinaadaan oo amniga ay u sinaadaan. ujeedkuna intaasi weeye wax kale oo dhiba ma jiro ayuu yiri Macalimo. xilligan oo ah waqti xasaasi ah oo dalku jawi doorasho ku jiro isla markaasna ay magaalada Muqdisho la ciirciireyso martida iyo musharaxiinta badan ayaa la rumaysan yahay in xoojinta amniga ay tahay arrin muhiim ah si doorashadu ugu dhacdo jawi xasilooni ah. warbaahinta ayaana iyana wararka doorashada ka tabin doonaan howl gaar ah oo ay ku xiran yihiin shaashado ay kala soconayaan sida ay doorashadu u socoto. doorashadii guddoonka baarlamaanka ayaa waxaa dhacday buuq dhanka amniga kadib markii ciidamada booliska ay diideen inay gudaha galaan xildhibaano lagu muransanaa oo matalaya gobolka Gado. guud ahaan daawadayaal wanageynta warki oo aad kala socoteen janalka dalka TV Media fadlan daawade haddaad nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u helo wararka iyo warbixinada 24 saacan u baahino. aragtidiinana halkaas noogu reeba muuqaalkana sii share gareeya. laagtiinana waa inuu muhiim daawadayaal wana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka janalka dalka TV Media.